وتوكل على الحي الذي لا يموت كتوكل oo wakiisho alla subxaanahu wa tacaala noolaha amarnimo dhimanin sidoo kale waxaa dhahdaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adiga oo keliya aan ku caabudaynaa adiga oo keliya aan gargaar ku weydiisanaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man istagna aghnaahu allah waman istacafa acafahu allah qofkiisa ka kaaftooma dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka kaaftoomin doona qofkiisa isceliyana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xifdin doona xikmadda ugu weyn ayaa ah ha ku tirsanaan dadka ee ku tirsanaa alla subxaanahu wa tacaala naftaadana bar in ay ku qanacdo in ay horumariso in ay dadaasho yacni inaad noqoto qof fiican dadka wax taraya ee waxba aanan ka baryin watawakal cala allahi wakafaa billaahi wakiilan kuna tawakal oo alla subxaanahu wa tacaala taladaada u dhiibo waana kugu filaya wakiilahan alla subxaanahu wa tacaala in yansurukum allaha falaa ghaaliba lakum wain yakhdulkum faman da alladii yansurukum min bacdihi wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun haddii alla subxaanahu wa tacaala idin garab galo oo idin gargaaro cid idin jebin karta ma jirto haddiise alla subxaanahu wa tacaala idin dayacana cid idin gargaari karta ma jirto ee ha ku tirsanaadan alla subxaanahu wa tacaala ayuu leeyahay mu'miniinta sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkiisa ka istaaga inuu dadka yacni wax weydiisto alla subxaanahu wa tacaala ka kaafin doona qofkiisa raadiyana isku filnaansho alla subxaanahu wa tacaala isku filnaansho siiya qofkii sabar yeeshtana alla subxaanahu wa tacaala ayaa sabar siiya looma siin qof bixin يعني wax ka khayr badan sabarka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii baahi ku dhacdo oo dadka u jeesta baahidiisa lama daboolo laakiin qofkii alla subxaanahu wa tacaala u jeesta alla subxaanahu wa tacaala si degdeg ah ama dib ugu filnaansho ayuu siinaya alla subxaanahu wa tacaala qof kasta oo daac u sheegto wuxuu noqonayaa adoon baahidaada kuwa xukuma oo ku dulaysanaya laakiin alla subxaanahu wa tacaala markaad u sheegto waxaad noqonaysaa adoon yacni sharaf iyo karaamo ku nool aadanuhu wuxuu ku siin karaa intay awoodaan laakiin alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siin karaa intaadan qiyaasi karin qalbigaaga alla subxaanahu wa tacaala ku xir waayo ma jirto cid kale yacni gargaar kuu fidin karto oo gargaar yacni ku siin karta waxaad cunto iyo waxaad cabto qof ayaa ku siin karaa laakiin kalsooni degnaan iyo xalag nolosha keliya alla subxaanahu wa tacaala ku siin kara ugu dambeyn haddii aad mar walba dadka u baahato waxaad noqonaysaa adoon dad ah laakiin haddii aad alla subxaanahu wa tacaala mar kasta u baahato waxaad noqonaysaa adoon sharaf iyo khayr ku nool asalaamu calaykum